بسم الله الرحمن الرحيم والسلام يوم مدى الصومالي ميل كستي جوجتو دمان gaar ahaan ummadda reer Puntland saaka waxaan rabaa dhowr qodob inaan ka hadlo qodobka ugu horeeya waxa weeye xukuumadda Puntland uu madaxda ka yahay Saciid Cabdullaahi Deni qodobka labaadna waxa weeye arrinta bixin markaan ku horeeyo xukuumadda iyo madaxweynaha iyo ku-xigeenka ama dawladaba iyo baarlamaankaba waxaanu galay doorasho waxaa tartamay dad fara badan waxaa madaxtooyada u tartamay dad gaadhaya dhowr iyo 30 qof oo madaxweynayaal iyo ku-xigeenna u tartamay waxaa soo baxay Saciid Cabdullaahi Deni iyo Axmed Cilmi Cismaan kuma aanay soo bixin xoog iyo ligdin iyo khasab midna 66 baarlamaan ayaa kala doortay nasiib bayna ku soo bixin sharci ummadda reer Puntland aad iyo aad bay soo dhaweysay xaflad baa loo sameeyay Soomaali baa ka soo qayb gashay arrimo fara badan oo duruufeed baa ku hareereysnaa Puntland waxaa la sugayay arrimihii ku hareereysnaa in ay xukuumaddu go'aan iyo policy ay ku wajahdo la timaado lambar 1 ay ugu horeyso amnigii wadanka oo faraha ka baxay oo gobolladii dalku ay maqan yihiin Sool Sanaag Cayn intuba ay maqan yihiin inta kalena ay xaaladeedu ay nusloognahay waxa kale uu shacabku sugayay dawladda federaalka ee jirta asalkeedii hore in bagaati laga soo dhisay kuwii ugu horeeyay Puntland ay sababtu ahayd inay xiriir iyo saaxiibtinimo dhow la samayso waxa la sugayay maamul goboleedada Soomaaliya in shir loo qabto iyo dawladda Soomaaliya oo khilaaf ku kala jiray oo xukuumadda Puntland ay door ka qaadato oo dawladda federaalka ay shirka u fadhiisato oo waxay xaq u leedahayna baydankeeda leeyahay ay ka wada hadlaan mas'uuliyadda iyo dalka Soomaaliyana hadii la wada ilaaliyo doorkii noocaas ah oo la filayay way ka leexatay xukuumadda Puntland oo la doortay Saciid Cabdullaahi Deni wuu ka leexday wuxuu saaxiibtinimo dhow iyo shir la galay dadkii dalka ku soo duulay oo xabadda iyo rasaasta la dhacayay buu dubay kula galay Muuse Bixi oo aynu xabad wadaagnahay iyadoo ay xabaddii ka socoto hadaaftimo oo la isku ridayo caray wiray taagan tahay oo dumarkii muusanaabayaan oo raggii dhimanayo oo daga xabaddii soconayso wuxuu la galay shir wuxuu la galay ninka la yiraahdo Muuse Bixi arrintaasi ma aha arrin ummadda reer Puntland u qalanta ma aha arrin madaxweynaha iyo xukuumadda laga sugayay mana aha arrin la qaadan karo koow taas iyadoo ay jirto ayaa heshiisyada la wada galay waxa ku jirtay dekadii Boosaasood ee ummadda Soomaaliyeed ay waqtigii dawladdii dhexe ee Soomaaliya 19 dhacday lagu soo mooday 18 gobol oo Soomaaliya markii dagaal ku dhacay iyadoo dekada waxay ee qarashkeeda dawladaha jira laga dhisay in la yiraahdo alaabtii ka soo degaysay waxay ka soo degaysaa berbera miina hayntii qabsatay Sool iyo Sanaag iyo Cayn xabaddu naga socotay arrintaasina wax la qaadan waayay bay noqotay wax sharciga baalmarsan iyo garashada caadiga ah bay noqotay intaas iyadoo ay jirto oo dhaahin iyo bolojiis iyo xaal laga doonayay iyo qancin madaxweynuhu ayaa meesha liyaada bixin waxa ka dhacday kaantarool la geeyay maxuma dawladdu kaantarool way isagaysan kartaa laakiin sifa sharciga loo baahan yahay loo geeyo madaxweynaha waxa ugu tagay wasiiro xildhibaano isimo wax garad arrinta wax la yiri laba rabo fidmay siday tahay waxa looga qabto waxa la joojiyo midna madaxweynuhu intaba uu ka dhagaaday wuxuu soo saaray warqad madaxweynuhu xafiiska madaxtooyada ka soo baxday waynu isla garanayna dad baynu nahay ilbaha sida ay u qoran tahay ma aha si sax ma aha waa sidii laga cabanayay si dadka ku filanna ma aha si wax ku suurtoobayana ma warqadu sida ay u qoran tahay waa si 90% qaldan oo siyaasadaysan kama dhaxayso meeshu uma dhaxayso buurawada iyo Garowe waa xadka gobolka Sool وأنا عضها سيدا قرحدو عضها بحث لبدا قول حد كودو كلا عاديها
kuma cadda warqadda kaantaroolka hala qaado kuma cadda yaan la deegaameyn baa ku qoran waa la deegaameynaya dadkani weydiiyaan way dhisanayaan ama reer Garowe ha noqdeen ama reer Sool ha noqdeen arrintaasina waxay noqotay arrin kale oo la qaadan waayay okay laba qodob saddex qodob baan saaka ka hadlayaa madaxweynaha dawladda waxaan leeyahay ummadda tani way ku aamintay waad u dhaaratay sharci iyo dastuur iyo nidaam baa jiray ummadda Soomaaliyeedna ummadda Puntlandna sharcigaasa ku filan arrintii aad Somaliland islam heshiiska kula gashay iyadoo ay xabadii socoto oo yuuba dagaalkii ka socdo bolojiis iyo xaal ka bixi kaantaroolka bixin ee todobada cashi laga bariyana meesha ka soo qaad haddii aanay taasi suuroobayn oo aadan Somaliland wada hadalkeedii aadan ka tanaasulayna koodii luuliyana aa sheegto tirwad hadal baan la socdaa wada hadalka cid la gelisa adiga maaha dhulbahantii warsan gali ma garan waayo inay saaq la hadlaan waxba la xiriirinayaa dawladdii la dhistay ee neynta eyrka la dhistay sharciga la tixgelinayaa cid la hadlaysa maaha adiga Cabdullaahi Saciid oo madaxweyne adiga maaha cid la hadlaysa Axmed Karaash iyo ina Dhoobadaar Cabdiraxmaan Dhoobadaar gudoomiyaha baarlamaanka madaxweyne ku-xigeenka la hadlaya haddii xero warsan gali iyo xero dhulbahantii ay iib noqonayso isaaq laga iibinayo iyaga iibsanaya adigu ma iibsanaysid xadna maldin shaqana isku malihidin sharci iyo madaxweyne iyo 5 gobol iyo degmada Buuhoole gobolka 6 gobol baa lagu doortay sharci iyo policy aad ku wajahdid iyo xuduudii soo xidhid iyo dastuurka ilaalisi baa laga rabay haddii ay noqoto in wadankii la xaraasho cadawgii laga iibsado adigu ka iibin meesida madaxweyne waxa ka iibsanaya nimankii meesha lahaa baa ka iibsanaya Axmed Karaash iyo ninkii la yiraahdo Cabdiraxmaan Dhoobadaar baa ka iibsanaya Cabdixakiin Dhoobadaar ama dhibaat ha u bixiyeen saaqa u siiyeen ama wax kale kula shuraakayeen iyaga leh taa intaasaan kaga gudbaya qolada reer Garowe waxaan leeyahay neynta ayrkii markii Puntland la dhisay waxa aan 5 gobol iyo degmo maanta waynu ognahay Soomaaliya gacanta kuma hayno mudugna maamulka laga dhisay waynu ognahay shub la yiraahdo Galmudug barina waynu ognahay inaga wadaadada iyo Puntland baa isku haysta waxa maanta gacanta lagu hayaa waa Garowe ee nabadgelyadu ka jirta caasimadda u tuurabaan ilaahay Garowe oo joojiya waxaanaad hadba meel ka faarfaarasaan ha noqonina saboolkii dhirga nabadda waa iskaga safaada reer Garowe intaas la meel yiraahdo baa jirtay hira oo afar qolo degi jirtay oo u dhaxaysay gobolka Doolo ahayd oo Buuhoole iyo u dhaxaysay meesha yiraahdo Wardheer harti iyo habar yoonis iyo habar jecel iyo ogaadeen baa wada degi jiray qolaba ducbay ka ilaajin jirtay subaxii dambe nin ducaale la oran jiray oo habar jecel ah bagaarisiisa waa afdheeraan isagoo wata Buuhira wuxuu ka foqday birkid kabarana wuu shan habeen markuu ku jiray baa niman Axmed Garaadi ku soo duuleen isagii afartiisii wiilba waa dileen birkidina waa wadeen waa lagu kala yaacay nin habar jecel baa gabiyay wuxuu haaba beel sare ninkii lacagta haystaa ee hindisa ku qaaday tashiga maad helaan bayne hawliyari mideen laguma dego hira ducaalowe nimankii hagar iyo biciidiyaan ka qaxay habaqlahoodii hubiyani hagar iyo biciidiyaan ka qaxay habaqlahoodii habar yoonis watay galbeed uga hayaameen hurday nimanka yaal waxa ka raray hal rasaasad nimankii haliyada ahaa hurinta reer daahir haye iyo gowlalaala degmada lagu horjooga idoo waayo geediga inay hore u qaadaan mahargaafnada meeshu soo hoy qalqale ma ha ka dhiginina hoy qalqale meesha la bixin dad tolaba wada deganaa harti dalma kale nidaam iyo derisnimo iyo wanaag baa lagu wada deganaa joojiya waxa kanaad wadaan iyo faarfaarkan qolada reer Sool TV-yada ka qeyleysa waxaan leeyahay nin la yiraahdo Xasan Bida gaari u dhiyay wadan jiray markaas waxa ku soo baxay waraada dheereeya deedna wuxuu arkay bahalkii gaarigiisii ka xoog badan oo ka dheeraynayo ka qaad weyn markaas wiilku dhalay wuxuu ku yiri aabe shiraaq inoo sarkan wuu dhamaanaya intuu dhamaanayo guriga inoo dhigo
laba sano markuu joogay wuxuu arkay bahalkii kamaanadiina loo kordhiyey taayiradiina loo kordhiyey laba raar laga dhigo sidii u duulayo markaasuu aan la boobna dhammaan maayo inoo soo saar hooyna reer Sool waxaan leeyahay ha ka qaylinina tiifiyada bixin waa la degayaa caasimadda Garoowena sida canjeeraday u faxasaa weyna gaaraysaa magaalada qaybtiina dhistay oo soo dega waxaan aaminsanahay inay suurtagal ahayn qaabka looga hadlayaa dadku waa dad isku nool waa dad isku degaan waa dad walaalo dhulka waa la wada leeyahay Garoowe iyo Laascaanood baa rabaan is qabsadaan laakiinse dalku goboladu xad bay kala leeyihiin warqad dukumeentigu meel ka soo goobuu leeyahay toonbalaynka meel laga sameeyay cashuurta meel laga qaaday leedahay waa gobolka Sool meeshaasi dukumeentigeedu gobolka Sool buu ka soo go'ayaa halaga daayo faarfaarka iyo foodada aad iyo aad baan idin salaamayaa wabillahi tawfiiq waxaan kale ugu baaqayaa beesha gobolada Sool Sanaag iyo Cayn ee beesha dhulbaantiye beesha Warsangeli haddii nidaamkii iyo sharcigii irooyile ee nayntii aynu qoranay ee Puntland ee aynu wada dhisanay la baalmaro oo ay noqoto iyadoo cadawgii dhacayo oo xabadii dhacayso oo raggii la laynayo oo baabuurtii la kala qabsanayo in cadawgii lala hadlo maalin kasta oo sharcigii la ixtiraami waayo inaynu shir degdeg isugu nimaadno gogashana aniga dhigaya waqtigana waqti kooba weeye oo bishan gudaheeda waa soo sheegaya hadii la haydno si aayaha iyo mustaqbalka looga tashado ay shir degdeg la isugu yimaado